سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال إذا لهانتين بمال والبقى الدنيا كجوكتان مالين قروح بدن هبين وناكسن حلقة إذين تهبوا وناكسن qofkii la hadlayo waa walaalkiin saaxiibkiin Aligo channelka adiga daawanaysan waa Aligo production maanta waxa halkan kugu soo gudbinayaa barnaamij cusub oo nagu magac daray hadii ay kugu dhici lahayd maxaad sameyn lahayd toddobaadkan dhacdada la yaabka leh oo aan idin soo gudbinaya ayaa waxay dhacday 9 bishan ee Febraayo aynu ku jirno waxayna ka dhacday deegaanka ama ismaamulka Kakamega ee dalka Kenya dhacdada la yaabka leh ayaa waxa sameysay haweeney lagu magacaabo Caroline Simiyu ayaa waxa ay sameysay laba neef oo lo ah oo lahaa saygeeda in xaafadda ay ka kaxaysay ay u geysay waalidkeed Caroline Simiyu xilligii ay lo'dani guriga ka kaxaynaysay muusan joogin xaafadda saygeed markii Caroline arintani wax laga weydiiyay ayaa waxa ay leedahay in meherka uu ninkeeda kala daahay inuu u geeyo waalidkeed qowmiyadda Luya ayaa waxay dhaqan ahaan u leeyihiin in meherka gabadha loo geeyo waalidkeed lamaanihani ayaa waxay isqabeen ku dhawaad 20 sano waxay soo dhaleen 4 caruur midkii shanaad wuu ka dhintay Agostina Muhanji oo ah sayga Caroline Simiyu ayaa waxa uu sheegay in ay jirto arintani balse uu leeyahay in meherka gabadha uu kala daahay uuna rabay in uu mar hore u geeyo waalidkeed laakiin 4 lo ayuu meherkeeda ahaa laba hore ayuu ugu geeyay labadu ku harsaneed ayay inantani Caroline Simiyu intii ay kaxaysay waalidkeed u geysay dhacdada la yaabka leh ee deegaankaasi ka dhacday ayaa ugu dambeyntii waxa ka hadlay Nathan Muhanji oo ah aabaha dhalay Agostina Muhanji Nathan Muhanji waxa uu leeyahay arintii ay sameysay haweeneedu sadaq u ahaa inaysan ahayn arin fiican qowmiyad ahaan dhaqan uma laha qowmiyadda Luya in lo dhays ah la suuq geeyo la iibiyo ama waalidkeed loo geeyo in xaafadda laga kaxeeyo balse arinta ay sameysay Caroline Simiyu oo ku tilmaamay arin aanan fiicnayn daawade hadii ay arintan adiga kugu dhici lahayd maxaad sameyn lahayd